بسم الله الرحمن الرحيم mahad mugeed ilaah baa loo magantiinahay naxariis iyo nabadgelyo ergeygii furqaan iyo udgoonu rasuulkeeni maxamed ah korkiisa ha ahaadaan magacaygu waa xasan jaamac waa suutaminta gabaygii ila soco dhulkaygow ee uu hindisay ama hal abuuray ilaahay ha u naxariisto oo naxariistiisa jannaha ka waraabiyo nabiyadiina hala xiriiriye ee abwaankii murtida shishlaa ee Soomaaliyeed ee reer Djibouti abwaan xasan cilmi diiriye abwaanku waxa uu gabaygan curiyay guugu markuu ahaa 1978 xilligaas oo kaliya ay ka soo wareegtay xornimadii dalka Djibouti sanad kaliya gabaygu uma baahna in laga faaloodo ereyadu waa ereyo fudud si aad iyo aad u culus qofka dhuuxana isla markaaba uu ka dhargaya oo uma baahanayo in loo balbalaariyo abwaanku waxa uu yiri sahan waxa la aada markaad seenyo dhaqataaye sumadaba haddii aad lahayn waa saqaal madhaane sarsar waxaa la ooda markaad xero sangaadhaaye suryo dhaxaan la reer lama furiyo sool xajiin badane sidig waxaad ku maasha naqiyo seer ma weydadaaye abaar soloontay saadko engegay looma soo hoyaane cirka waxaad saluugta markay samaad u toosnayne agaalida hadduu naafku saro sabadu waa dooge haddaan saxaalka ceeryaantu qarin dhibic ma saydheene markay talaadu saab leedahaad sabarka laacdaaye haddii kalaase inay siibatiyo sayma wow haliise arrin wuxuu salguuraa hadduu marinka seegaaye kula sibiiqday xaajadu markaan saani loo wadiine sartu waxay dhalaashaa markaad subaga biiftaaye suudiga haddaan laga xirayn way sargacantaaye sanka waxaad la raacdaa udgoon caafimaad sidaaye haddii sabadku ka fool xun yahay waa allow sahale suquuxuu iftiimaa markaan qolaafi saarnayne saxad male haddaan laga silsilin saalo iyo boodhe waayaha saboolka intaan sare u eegayay surmaaseegtadaan galay hamiga soofka iga jiidhay yana ilaa saqaafine murtida waxaan ku saameelay saliilyadan wada saaqda iyo neefta salalaysa ka sawraxay simbidhada cagtiyo sibirta hoostaale ilaa soco dhulkaygow sirbaan ku warramayaaye sareedada dharaartaan helneen saan cadduhu guuray waxaan saadinaba maalintaan saarnay caalankeenna xilkaan sidoo wanaagoon salloxo waan ku saabulaaye adduunyadu intay sugan taheen suurta la afuufin saxariirta inankaaga ba'o waan ku saabulaye suuf iyo xariiriyo inaan siinan kugu daaho oon saxaar dushaada la dhigin waan ku saabulaye hayeeshee salgooyada danto suxulka loo aasto
iyo samafalkaagii haddaan sadarka falleeyo. saf baa jira surwaalka uu xidho suunka aan furine, saf baa jira sinaantaada naca dheefna kaa sugiye, saf baa jira xubnaha soocayo hawsha saanyadaye, saf baa jira hunguri siimayo seedo baas liqaye, saf baa jira sisiba oodan iyo meel xun kaasadaye, saf baa jira dan kale loo sito saar wareer qabaye, saf baa jira saneegtiyo fadhiya suudimaha qaare, saf baa jira sadrigu dhaawacmo suuxay waa horoye, saf baa jira sidayda hurdada kaaga saahidaye, saf baa jira aqligu suulayo saaxiiba ahayne, saf baa jira santari ka hayo seexan abidkoode, saf baa jira saba lagu wadiyo suul dhabaalahaye, saf baa jira naxliga ka sardhaba oo ku saacidaye, saf baa jira sakaar doonayo diiday sarartiye. soddonka umurood intaan kala sifaynayo, ilaa soco dhulkaygow sir baan ku warramayaye, ilaa soco sarbeebtiyo halkaan soofka marinayo, ilaa soco wanaaggan sideen ku silsili doono, ilaa soco sitaadkiyo hirwada waanu saaqad goyne, ilaa soco sargaan xoodhisan suutidow qabane, ilaa soco suldaara ku maqan sanab la yaashiye, ilaa soco mareegta la sudhi subaxan dheerayne, ilaa soco sadka tawdayuu soo sanqadhayaye, ilaa soco saxeex baa ka dhacay waana lagu siine, una samiir aroor suubaniyo saacu imaane. ilaahay ha u naxariisto oo naxariisiisii janno ha ka waraabiyo, nebiyadiina hala xidhiidhiyo abwaan xasan cilmi deeriye. waxa aan runtii aan halkan mahad ballaadhan uga jeedinayaa walaalkay warsame xasan cilmi deeriye oo isagu wax badan ururiyey suugaantii aabihii suugaantii abwaanka aanan ka helay maansadan iyada ah.